Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa in salaama dhammaan walaalahay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waxaan rajeynayaa inaad wada caafimaad qabtaan. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan timaha. Waxaa jira ayaantan dad badan oo ka cabanayo timo daadasho iyo timo go'go. Marka halkan waxaan kugu faa'iideyn doonaa qodobo dhowr ah oo sababo timaha inay daataan. Marka koowaad horta waa caadi tinta qaybo kamid ah inay go'do markii tinta la shaleynayo ama caadi xataa taakada soo raacdo ama maryaha ay soo raacdo waa iska normal. Laakiin waxaa jira marar qaar oo tinta go'do xad dhaaf sida normalka loogu talagalay ka badan ee go'do ama gacanta markaa gelisid ee gacantaada soo raacdo ama shalada markaa gelisid wax aad u tiro badan ee ka go'an. Marka waxaa jiro sababo la xiriira timo go'itaankaas aad marka ugu horeyso haddii channelka uu kugu cusub yahay waxaan kaa codsanaynaa subscribe inaad saartid gambaleelka aad furatid si aad ula socotid fiidiyoyaasha cusub aan soo gelin doono insha Allah. Iyo muuqaalka inaad dhamaysatid iyo inaad like saartid waa mahadsantihiin. Qodobka koowaad ee keena timaha inay daataan waxaa waaye stresska ama walwalka. Qofku markuu wax ka walaacsan yahay ama ka walwalsan yahay oo problem uu haysto waxaa dhacdo in timihiisa ay aad u go'aan ama family problem ha ahaato ama waxbarasho dhibaatada dhinaceeda ha ahaato. Dhanka walbo qofka problem uu ka qabsan karaa. Marka problem hadduu kugu furmo oo xoogaa aad fakarto zaid u fakarto oo qalbigaaga oo uusan deganeyn waxaa dhacda tinta inay aad u go'do. Marka waxaa fiican inaad stresska iska yareysid. Wax walbo kugu dhacaya qadar waaye marka inaa Ilaahay tala saaratid oo qofka uu adkaarta iyo istighfaarta uu badsado si uu uga yaraado stresskaas uuna ka dhigto wax walbo oo dhacayo wax fudud si ay ugu fududaadaan biidhnillah. Stresska marka waa midka koowaad ee sababo timaha inay aad u daataan. Waxaa kaloo sababo hormones qofka jirka ibni'aadamka hormones uu leeyahay. Hormone imbalance hadduu qofku ku dhaco hormoonkiisa uu khalkhal galo waxay u hogaamin kartaa qofka inuu timihii aad uga daataan. Marka hormoonkaas waxaa kamid ah camal xataa hooyada markay ilmaha nuujinayso waxaa dhacda inay aad timaheeda u daataan sababo la xiriira naaska caanaha uu soo saaray hormoonada ee jirka uu soo daaynayo la xiriira darteed. Markii waqtigaas oo la dhaafo kadibna waxaa laga yaabaa tinta inay dib qofka ugu korto ee hooyada tinta dib ugu soo baxdo. Marka hormoonkaas oo isbedelayna wax dabiici oo Ilaahay qadaro waa wax laga bedeli karo maahan laakiin waqti kadib wuu isbedeli doonaa waxaana qofka u badan tahay inuu timihiisa dib ugu soo laabtaan caadi oo aysan aad uga go'in. Qodobka saddexaad ee sababa qofka inuu timaha aad uga daato waxaa sababo oo kale daawooyin qaar oo waxaa jiro timaha dadka ka daadiyo sida kuwa oo dhiig karka loogu talagalay daawooyinka dhiigga khafiifiyo daawooyinka kansarka loogu talagalay waxaasoo dhan waxay sababaan inuu tinta aad u daato. Dad daawooyinka isticmaala hadday jiraan oo timaha ay ka gurmaan waxaa fiican inuu dhakhtarka la xiriiro si uu ugu sheego inay tinta aad uga daadanayso iyo uu dhakhtarka weydiiyo wixii ka caawin karo. Qodobka afraad waxaa waaye diet qofka cunadiisa. Qofka hadduusan cuneynin cunto isku dheelitiran oo nafaqo leh waxaa dhacda in timihiisa aad u daataan. Qofka jirkiisa hadduu ka maqan yahay maadada birta ama iron-ka waxaa dhacdo inuu timaha aad uga gurmaan iyo protein fiican haddii jirkaaga uusan helin tintaada inay daadato ayay u badan tahay. Waxaa kaloo sababi karo oo la xiriiro cunadaas dadka inta badan markay iska dhimayaan miisaanka waxaa dhacda inay timaha ay ka daataan taasna waxay la xiriirtaa diet-ka waayo qofka markuu miisaanka iska dhimayo waxaa dhacda inuu cuntooyin badan oo nafaqo leh uu ka haro oo isdhaho cuntadan way ku cayilinaysaa. Marka waxaa fiican qofka inuu at least haddii uu xataa weight uu iska dhimayo miisaan uu iska dhimayo inuu cunto isku dheelitiran oo raadsado cuntada xajmigeeda leh in la yareeyo
exercise qofka uu sameeyo intaasaa ku filan. Kabacdi wuxuuna helayaa cunto caafimaad leh oo yar, jirkiisii inuu isdhima rabane wuu isku dhimayaa insha Allah. Waxaa kaloo sababo thyroid disease cudurka la dhahayo, kaasoo asagana oo hormoono ay soo daayaan, kaasoo sababi lahay inuu jirkaaga development ku sameysmo ama koriin ama tinti. Marka qofka haddii oo thyroid uu qabo waxaa laga yaabaa inuu tinti ay ka daadato. Haddii qofka daawo fiican oo helana tintiisa dib ayay ugu soo laabanaysaa. Qodobka kale waxa waaye maxaa la dhahaa dhaxal. Dad waxaa jiro dhaxal u leh inta timaha ka daataan, sida haddii hooyada ama aabaha ay timaha aad uga daataan, ama waalidkaaga hore ayeeyooyinka iyo awoowayaasha, ama uu jiro family history oo bidaar iyo waxaas ay jirto, waxaa dhacdo qofka asagana tinta inay ka guranto. Dumar ha ahaado ama rag ha ahaado, tinta inta badan waxay ku imaataa ayadana dhaxalkaasay ku imaataa ama wax oo dadkaagii hore laga dhaxlay. Waxaa kaloo jiro qofka haddii oo immune-kiisa hoos u dhaco. Immune waxaa la dhahaa qofka jirkiisa difaaciisa hadduu hoos u dhigmo, waxaa dhacda inuu timihii oo meesha ay kasoo bixaysay oo dhibaato ku imaato oo daciifto, timo soo saaridda ee daciifto. Marka qofka immune-ka inuu kor u qaado waxa uu caawin karo inuu daawooyin fiican qaato, diet fiican uu qaato, tintana dib ay ugu soo laabato. Waxaa kaloo dhacdo tinta qodobka kaleeto oo sababo timaha inay aad u daataan, inuu aad loo isticmaalo waxyaabahan kuleelka tinta lagu sameeyo sida blow dryer-ka, geeda fooneysada, ama mida kale oo maqaska. Waxaasoo dhan ayagana waxay sameeyaan tinta aad ay u baabi'iyaan. Haddii qofka uu aad u isticmaalo kuleel oo mar walbo tintiisa kuleelkaas ka daba wado, tinti damage ku dhacay, way baabi'aysaa, way daadanaysaa. Waxaa kaloo dhaco qofka haddii uu timaha uu aad u dhuujisto, taakooyin aad u adag oo isticmaalo oo ku dhuujiyo habeenkii markaad seexanaysid, tintii oo aad u dhagan haddii aad seexatid, dhibaato weyn ay tinta u keenaysaa. Tinti waxay u sababaysaa inay daadato. Waxaa kaloo sababo inuu qofka isticmaalo timo dabitaan aad u adag. Qofka marka tinta loo dabayo xataa waxaa fiican in oo si dabacsan loogu dabo si ay tinta uga go'in, salka hoose uga go'in. Waxaa kaloo jiro qofka hadduu zaaid shaamboo u isticmaalo, tinta mar walba la dhaqo, ayadana waxay keentaa inay tinta aad u daadato. Xataa at least haddii tinta aad rabtid inaad dhaqdid oo aad ka dareentid tintaada waxay u baahan tahay inaad dhaqdid, waa inaad isticmaashid conditioner ama waxa la dhaho dobi shaambo, taasoo tinta u jilicsan oo chemical badan aan lahayn oo tinta jilicinayso. Marka iyo shanlada zaaid u badan mar walba ama tinta qoyan haddii la shaleeyo, ayadana waxay sababtaa tinta inay go'do. Waxaa kaloo sababo timaha inay aad u go'aan jilicsada. Dad badan waxaa jira jilics marsado tinta markaas ay aad uga daadato. Marka waxaa fiican tinta dabiiciga inaad ku haysatid, aad si fiican u nafaqaysatid, saliid fiican marsatid, mar walba duubtid. Tinta jilics ma u baahanaysa, timo qurux badan ay noqonaysaa. Marka qodobadaas aan soo xusnay dhammaan iyo kuwo kaloo laga yaabo inay sii jiraan ayaa waxay u sababaan in tinta aad u daadato. Marka iska fiiri insha Allah maxaa adiga is leedahay way kuu keeneen, qodobkee is leedahay wuu kuu keenay. Haddii lacala aad kaaga daadinaysana waxaa fiican dhakhtar inaad la xiriirtid, soo ogaatid cilada meesha ka haysato. Haddii kaleeto oo waxyaabo kale ku haystaan inaad styling-kaaga tinta qaabka u hagaajisatid iyo saliid aad marsatid, waxaas oo dhan aad iska fiirisid. Marka waa mahadsantihiin dhammaantiin, waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.